Qaar ka tirsan ardayda wax ka barata dalka Indonesia ayaa tacsi tiiraanya leh u diraya shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan eheladii uu ka geeriyooday madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku geeriyooday dalka Imaaraadka Carabta. Qaar ka tirsan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Indonesia ayaa ku muujiyay dareenkooda iyagoo wejiyadooda ka muuqdeen saaka markii ay maqleen geeridii ku timiday madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Mid ka mid ah ardayda wejiyadooda ay ka muuqatay dareenka naxdinta leh ayaa waxaa ka mid ahaa Ibraahim Nuur, wuxuuna yidhi: inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. waxa waaye allah u naxariisto madaxweynihii hore soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed. marka waxa waaye waxuu ahaa nin aada u jecel dalkiisa, jecelna inuu dhibaatada ka bixiyo, uuna soo halgamay dalka. waxaan dhihi lahaa marka ilaahay hanaga safarsiiyo, jannadii firdowsna ilaahay ha ka waraabiyo. kulli waa la wada dhimanaya, meesha waa la wada socdaa, ilaahay naga safarsiiyaan dhihi lahaa madaxweynihii hore ee cabdulaahi yuusuf. kuma koobna keliya ardayda inay ka dhiibtaan dareenkooda ku aadan geeridii naxdinta leh ee ku timid ee madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed, hase ahaatee shacabka ku dhaqan dalka Indonesia ee Soomaalida ayaa iyagana sidoo kale waxay tacsi u dirayaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Weriye Daalac Daarshood, magaalada Jakarta, dalka Indonesia.